رب العالمين صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقتك runtii ciriiriya oo mawduucan aan ku qoranahay iyo waqtiga uu haystaa aad iyo aad u kala badan. waana mawduuc runtii waaqici ah, dhinacna xasaasiyadiisa kale oo atraaf kala duwani ay calaaqa la leeyihiin. sidaa daraaddeed waxaan ka tilmaami doonaa qodobada ama arrimaha ugu muhiimsan ayaan insha allahu tacaala aan tilmaami doonaa, laakiin runtii waa mawduuc u baahan keligii in nadawaad loo qabto. waa aafo ummadda muslimiinta runtii haysata oo zamankan ama qarnigan sidaynu tilmaami doonno dhib badan muslimiinta ku haysa. موضوع waxaa looga dhigay التحاكم إلى الشريعة وإبطال القوانين المخالفة للشرع. وحكم تقى الله حكم تقى شريعة الله سبحانه وتعالى يبرين أيو قوانين تي حررك كسور جيدة خلافة الشرع الله. وموضوع هنتي سينورك دون توص طابنيا لا إله إلا الله، كلمة توحيدك ayuu si toosa u taabanayaa xagga xaqiijinteeda iyo sugideeda iyo xagga dhaawicitaanka uu dhaawacayo kelmadda qofka afka kale kelmadda uu ka dhaawacayo. mawduucu waxaan ku bilaabi doonaa tacaariif kooban oo tacaariifka koowaad. masalada taxaakumku wuxuu soo hoosgelayaa masalada la yidhaahdo alxukmu bigayri maa anzala allah. ilaahay waxaanu soo dejin in wax lagu xukumo oo dadka lagu xukumo. cidda xukumaysa ama afraad ha noqdaan ama ha noqdaan xukuumaad ama ha noqdo odayaal dhaqameed, waxaan ilaahay soo dejin in dadka xukun looga yeelo. halkaasay salka ku haysaa. waxaa ka farcamaya taxaakumka oo ah in loo xukunto tago meelaha noocaasa oo laga qaato xukun ama la isku xukumo ayaa waxa weeyaan ka farcamaya. waxaa ka farcamaya oo iyadana tilmaami doona wax la yidhaahdo alqawaaniin alwadciya, qaanuunada ama xeerarka bini'aadanku dejiyeen ee ay u xukun tagaan ayaa soo gudageli doona. marka xukunka bigayri maa anzala allah waxa weeye waa kullu xukmin yukhaalifu xukma allahi caza wajal. xukun kasta ama garsoor kasta ama xeer kasta oo la xukumo kaasoo khilaafsan xukunka alla soo dejiyey, kaasina wuxuu noqonayaa xukmuljaahiliya ayuu noqonayaa. waqti kasta iyo zaman kasta uu joogo magacyo kala duwan ha loo bixiyo. waxaa loo bixin karaa qaanuun sida waqtiga maanta aynu joogno oo kale. waxaa loo bixin karaa nidaam sida maanta waqtiga aynu joogno loo yaqaano. waxaa loo bixin karaa dastuur sida maanta waqtigan aynu nool nahay loo yaqaano. wuxuu doonaba ha lagu magacaabee xukun kasta oo khilaafsan xukunkii rabbulcaalamiin uu soo dejiyey waa xukmun bigayri maa anzala allah. waxaanu soo gudagelayaa xukmu aljaahiliya sida allaba uu yidhi afa xukma aljaahiliyati yabquun. ma xukunka jaahiliyada ayay dalbayaan. xukunka jaahiliyada waxaa soo gudagelaya xukun kasta oo ilaahay iyo rasuulkiisu sala allahu calayh wasalam aanay xukumin. xagga kale waxaa ku jira ibtaal alqawaaniin alwadciya. qaanuunka waxa loo yaqaano waa cibaara can majmuucati alawaamiri waalnawaahi alwaajib aliltizaamu biha fi lbilaad. wuxuu cibaaro ama weedhaasi ay tilmaamaysaa qaanuun marka la yidhaahdo waa awaamir iyo amarro laysu geeyey, yacni cadad ama tiro waxyaabo lays amraya ah, sidaa ha la yeelo, sidaa waa in la yeela, iyo waxyaabo laysu diidayo, sidaa lama samayn karo, sidaa lama samayn karo. taasoo ay waajib tahay in la iltizaamo oo markay amarka iyo waxa la isfaraya tahayna in la sameeyo la iltizaamo. marka la isu diidayana in la iltizaamo isu diidaas oo laga joogsado. haddaba qawaaniinta noocaasi waa mutacadid ama ha noqdo qawaaniin qadiima oo xadaaraadkii qadiimka ahaa
sida xadaara ruumaaniya iyo qawaaniinta ay dejisan jireen ama ha noqdo mid waqti zamankan aynu nool nahay iyo saddexdii qarniye ka horreeyey sida qaanuunka faransiga iyo ka almaaniga ingiriisiga amriikiga iyo taaliga iyo hayri dalika wadciya waxa loogu magacaabay oo muslimiintu ay ugu magacaabaan qaanuun wadci ah bashar baa dejiyey rabbulcaalamiin ma soo dejin sayno ma doonta sharcigu ama waa sharci munazal ah oo min cindi illaahi caza wajal ka soo degay iyo xukunku ama waa sharci wadci ah oo bini aadan ay dejiyeen marka qaanuunta la leeyahay qawaaniinta la leeyahay ciwaanka ku jira ee la leeyahay wa ibtaalu alqawaaniin alwadciya waxaa looga jeedaa in la buriyo oo fasaadkeeda la caddeeyo iyo xukunkeeda sharciga ah in la isku xukumo ama loo xukun tago wax bashar dejiyey oo khilaafsan sharcigii alle subxaanahu wa tacaala haddaba mowduucani san horeba u tilmaamay waa mowduuc tawiilu dayl ah oo aad iyo aad u tafdheer oo u baahan runtii qofka ka hadlaya iyo ka fulinayaaba inay u baahan yihiin diraaya min muctaqadi ahli sunna waljamaaca in aqoon loo leeyahay muctaqadkii ahlu sunna waljamaaca waayo masaladani waxay si toosa u taabanaysaa oo calaaqa ula leedahay caqiidada ama ictiqaadka muslimka ah xagga sugidda iyo inuu caqiidadiisu sugnaato iyo inuu caqiidadiisu ay xiraafto kufri iyo gaalnimo ay gaadhsiiso haddaba zamankani in xukunka laga tegi doono oo diinta waxyaabaha laga tago waxyaabaha ugu horayn doonaa xukunka uu yahay nebiga ayaa tilmaamay calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaamu axmed fii musnadihi uu ku soo wareeriyey xadiid abi mamata albaahili radia allahu tacaala canhu waxaa rasuulku leeyahay latunqadanna cura alislaami curwatan curwa la buriye oo la furfure guntimaha islaamka uu ka kooban yahay midhmidh loo fure فكلما انقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها مركزتو قنتين لقويو وإسلامكي عقدي يوحو ككوبيه قنتيمو مركزتو مد لجارو dadku waxay ku dhagaalo tadambe sida marba mid loo jarayo ayaa waxa way islaamka laga tagaya waxa rasuulku leeyahay alayhi salatu wasalaam kullama qaddat urwatun tashabbatha an-nas billati taliha wuxuu ku sii daray nabigu alayhi salatu wasalaam wa ulahunna naqdan al-hukm wa akhiruhunna as-salah tawgu horaysa kuntinta ugu horaysa la furi doono ee islaamka laga furi doono la jari doonaa وحكمك إيو إلهي سبحانه وتعالى حكمك إن لو نبت قليو ويساق الله حكم تغو حكم إنو يهي اسم قاعد سنة حكم وكمد يهينا لو نبت قليو تنوع عاسا أيها هرت خلطك وقوه الرأي وكدعي دونا يقولتين توقوه الرئيسي اللي بريد دونا قلنا أين قندونتا توقودا بيسي أي شاري دونا عنا وصلاة أيها النبي عليه الصلاة والسلام هذا ما دام النبي قلت عليه الصلاة والسلام على مدها saacada qiyaame kicitaalkeedu iyo inuu soo dhow yahay lagu garanayo inay waliba nooca yaryar ah lagu garanayo in xukunka iyo xukuntaga shariicada ama loo xukuntagayo in laga tagi doono zamankeena iyo saddexdii qarniye ka horeeyay waxa ka sii qayb qaatay thaqaafadan Oromriikiga loo yaqaano الدول الأوروبية iyo Ameerika ay iska kaashadeen ee ay ku fardiyeen umamka ay ka awood bateen ee ay kowkayeen ummadda muslimiinta ah markay diintoodii iskaga tageen diintoodii ay qaadan waayeen fardintii lagu fardiyay ee dhulkooda la soo weeraray ee la adoonsaday ee meelaha laga adoonsaday waxa kamida in sharciga alle laga tuuro badilna loo keeno waxa loo yaqaan cawlamada iyo cilmaaniyadu labada cayn وآفة أمد هيستا مسلم كلية ما عالم كآفة لماذا آفة هيستا الكهوف المظلمة علماء قاركود كعبرين قدرت كمدمدو قدرت كلغو قريو وعولمada iyo calmaaniyada weey cawlamadu waa globalization ka waa in ummadda laga adoonsado xagga dhaqanka iyo thaqaafada iyo tawajjuha iyo qaabkay u kaanayaan laga adoonsado calmaaniyaduna waa in diinta ay haystaan laga tuuro oo la yiraahdo bilaadiin noqda ariga noocaasi marka wuxuu keensaday in xukuntagii sharciga alle inta la tuuro
oo laga tuuro loogu bedelo qawaaniin wadciya loogu bedelo sida uu sheegayo shaykhuna sheekh Muhammad مطر الزهراني عليه رحمة الله وحوليه أول قطر بدأ فيه إلغاء الشريعة الإسلامية كما يقول الأستاذ الموجود هو الهند حتى سنة 1791 وحوليه الشيخ سيده كسر نقلنا الأستاذ أبو علي الموجودي دولتي يبوه الرئيسي المسلم لقد توري إن الشرع الله يسكو حكومان وحيا هي الدولة الهندية وحكو حقي إنجليزكا طبعا كتوري سيدو وسي ودي دولتي لبعض وكحجيي وحي ودك الجيريا لو يقان أما الجزائر مركي فرنسيسكو أو قبصدي كون يسيديد بقول يصدنكي مصر بقى كحجتي أو لو سواريدي قانون كفرنسيكا تاريخ مركي كون سيديد بقول يصدق يسيديتنكي وحنا لو أروريي شريعة الإسلام كلية واحد لو يقان الأحوال الشخصية وقفكم إلا إلى هذا المركز دوريسو مركز وحسكفو ريسو وحيابها النوع عاصم بالشرع ولا حكم تجي كريسا وحكى لا شرعي عنه ولا حكم تجي ميسي ويسي سعودي إلا وحوي دولتها المغرب العربي كلا سيدة تونس هي بلاد الشام ومشرق العرب كل يسقال بقول يصدح يطرنكي إلا لسوق علي كن يسقال بقول يصدح يلباتنكي ميلادي كمدلقة شوقو بقول سنضات أو لا صدح سنضات مركي لهذي خلافة إسلامك نيكي مجرم كهاي يهودي كها مصطفى كمال أتاتوركي هو حوي حديدة أسيبي خلافة قدام بيسي المسلمين أي حرصته وكبر بريه كدبنا للا دغالمay diinta alle illa la gaarsiiyay xitaa in aadaanka iyo shacaairta islaamka in af carabi lagu guto hadaba mas'aladu wa mas'ala nabiguna alayhi salatu wassalaam si tilmaamay inay dhici doonto isla markaana zamankan iyo xilliga saddexdan qarniye aynu noolnahay thaqafatu al-urumriki ay sabab u ahayd in muslimiinta laga dhaqaajiyo حكمك على إنه وحكم تجان وإقاتل لوجنا بدلوا قوانين الوضعية أنت وحي كهر وحي هاي أخطاء الله نكر وأخطاء فردية أو قضايا هيمية أو جهل درجة لجيا وحيرا إنه سميستان أي كوكالة بدبادان أما وحلا ميدا تاسيا يسبب يسئل بدن وكميدا إن أنا إذا أقوم بشريعة آن الله لكن كان مقنن كأ ديارسا نرشي أردن وتتابعنا وحوي وحى ليمن ومسلمين تا كخصبي أو كدرقيي وحوي ثقافة أين تلمامين وحنا قالوا برالجينا سيدا با حكم يعني حكم وحلا حكومة وحق إلهي ليه وحنا كمتهاي وحيابه إلهي سبحانه وتعالى لو قال يليو أو إلهي سبحانه وتعالى وحو متيستي إن حقوق كله لو قال يلو حقوق داس أو لغوريو التوحيد أما كلمة التوحيد نبينا صلى الله عليه وسلم أحاديث تسوي كتل مامي أو كلمة أما لفظ التوحيد كاسد حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عن حديث ابن عباس في الصحيحين مركي النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل ودري وحويلي إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله جل وعلا مركا التوحيد كواكليين وحيابه كوبصنيو أما السوهوس قاليا وحكم إذا حكم كائن الله سبحانه وتعالى كلي لو ظهره هذا يتاي حق أسماء وصفاتك وسوق قاليا هذا يتاي حق الربوبية وسوق قاليا هذا ينقط حق أولوهية صدح النوع أي توحيد كالنوع قيبيو متكستب وسوق ده قاليا حكمك إلى هنا ينبغي بقرآن كقتل معمي الحكم ككلي ليه وأن عيد الله ذاقي وحكم إذا في سورة الأنعام أن وحور إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين حكمك وحل أمام ما حكم مجد إلا إله مويعدك له حكمك ومصبنا إلهي بانا كوحكل الفصل يا أمك الصارة إكل القرصورة كو خير كبضن وحكى الله سورة أنعام تضبيع كنتن إسلا سورة أنعام نبي اللحنة وحال يلب ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين آيات أنا له حكوت المامين
حكمك إلهي وحسقنا على حكمك أو إن وحلك لحكمه أما وحلك لقرصور إلهي كليا بأسقنتي وحكى الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف في موضعين من كتل مامي إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون إلهي وحلي حكمك إلهي باله وحنا ألا أمري إلى إذا استقموا يعدك لا إذا عابدين أما كلي عابدان حريرين حكمك الله حريرين أي عبادته وحي كتسيسا إن حكمك إياه حكمتك إلهي دين تسروحك وتقى إنه عبادتك مديعي وآيات أفرتنا الآيات اللي هي كنتنا وحال لي إن الحكم إلا لله حكمك إلهي كلي أي أصبنا علي سورة القصص ألا وحولي وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم إليه ترجعون إله حق له عابدا أما عبادتي أي نبتهي مجره ألمو يعني أما الله سبحانه وتعالى وألها أما معبودك كلي مويعدك له أن لعابدين سيدة دبانا عبادته سيدة دبانا يكفى يسيء وحيبها هاي تذكر عبادته معناه هذا الله عبادته سيدة دبا وحب مع الذل والخضوع وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان عبادته أما قفك عبادة مركل لا يوليهم وشعيلك غاية تلتقي قفك شعيل ربي يضل لقب الذل وحوي اسدلك اسدلين اسدلين شيء كستا الله بضع كمدو مخلوق لو صرفيه waxay noqonaysaa shirki iyo gaalnimo ay noqonaysaa xukunka cid xukun tagaysa waxay salka ku haysaa labada midkood bay ku haysaa hadaanay labadaba aanay ku haysaa daraadeed shirki ay hawshu salka ku haysaa ilaahay wuxuu leeyahay wa huwa allah la ilaha illa hu wa huwa allah ay al-ma'bud bihaqq wa kakali ibadadiisu ay haq tahay la ilaha illa hu ay la ma'bud haqqun siwahu subhanahu wa ta'ala ألا وعليه له الحمد في الأولى والآخرة ألا وحوصنا تيمهد هي أضومها أي مهديان أو يكون مهديان لكمال وصفه ولإنعامه على خلقه إن يكون مهديان في الأولى والآخرة تادوية آخرة إلهي وحوصنا لأضومه من مهديان وكذلك مهد ليه وحكى له ليه بأليه الله سبحانه وتعالى حكمك أيا يسوي ليه والعدل لهين وإليه ترجعون حق سايانا الذين علينا اسم سورة القصص وحال لي ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون هذين السياق آيات غفر سنو على قدر وطيدك كلمة التوحيد لا إله إلا الله يكد حيسا حكمك يا إن إلهي دينتي صلاح حكم تغو أي دريم إنسان سيدا يدو سيدا كعب إنه إمدون إن شاء الله تعالى هذا بقى أهمية إليه هذا التحاكم إلى شريعة الله جل وعلا وحويا الغهرين سيدة المامنين ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله قريتان كاد قريسو معبود عبادتي سوى حقتها ألم وينا نشرين نبي محمدنا صلى الله عليه وسلم رسول ما ذو قريسو أيا وحي كان سنة يساعين هذا حكم تقتهدي كلام شيغشadaas waxay noqonaysaa sheegasho aan jirin qofka tawaaqiita sayno imadan tayar asaaw qabaa'il iyo arrafiinta iyo kuwa la midka ah u xukun tagaya iyo iimaan ma kulmi kara waxa kale oo kamid ah ahmiyada tilmaamaysa amarka la is-amray wa anilkum baynahum bima anzala Allah nabi muhammad allah kulliye subhanahu wa ta'ala xukunka ku kala xukun dhexdooda shayga alla soo dejiyay oo sharcigiisa kamida waxa kamida digitaanka la isaga digayo taxkiimka sharciga alla la isku xukumi kari waayo ama la isku xukumi waayo in ay fitna ay ka dhalanayso fitnadaasina ay kamid tahay gaalnimadu waxdarhum an yaftiruka an ba'd ma anzala Allah waxa kaloo kamida كتيسشة لقى جيستو اسكو حكمك يا إلهي الحكم كيس لا أقبله وآخر كان سنة عذاب يا عقاب الدنيا من الآخرة فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وحكى لكم إذا
إن إلهي كتل مامي حكم كالله لغا تغاينو يهي حكم الجاهلية إنو يهي أفحكم الجاهلية يبغون وحكى كم إذا إن الله سبحانه وتعالى حكم كيسا وحرم إذا حكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهي حكم النبي محمد وحكم كاللوي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بالله سبحانه وتعالى ألا وحكوس في حكم كيسو إنو يهي خير الأحكام وأكملها وأتمها وأعدلها كوغو خير كبضا أو دميس كترا أو عدالة بضا وعدالة بضا أي الله سبحانه وتعالى كسفي وإنه يمن دونتا إنه يتهي كفر بواحة أو قفكم من لذلك قبحيو إلا إذا هذا حكم كالشريعة إنه وحا كفي عن حكم كإنجليز كفي عنه وشيء علماء أي كل سيئين إنه كفر قفك هدو كلمة أقول واقع هدو شان صلاة كذا هدو ولي بصومين كافر يا دين تنو دمدكي وأن قفك مؤمن كاهي إيمانك السقمة أصل الإيمان السقمة وإن العقيدة إن حكمك أنه هي خير الأحكام وأكملها وأتمها وأعدلها واجبنا أي تهي إن له كان سمع حكمك على يدو ولبا لغفر على النقنية ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون بإلهي يا كون أرسل على حق حكم هي حكم وحكمه يا الله حكم كيس كون أرسل لكن ولقوم يوقنون يقين سن وإلهي سبحانه وتعالى ويسر وحكروا كم إذا فإذا وضم بيسا فوائد وإبادتها يسير وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مجموع الفتاوى الضبية لما تصدر وقولية الضباء وكل هذا والحكم بما أنزل الله فيه صلاح الدنيا والآخرة والحكم بغير ما أنزل الله فيه فساد الدنيا والآخرة وشيخ الإسلام ابن رحمه الله حكمك لو حكم وحي ألا سودتشيين وحا كل حسوغان صلاح يهجاجي سوء الدنيا يا آخرة بيهجاجي هذا بدل بعد جيابا إن يدهدان حتى الدين تسكحوا كنا مصائب بين نقول عيسى مصائب أي نقول عيسى عالم كون بين نجاه إيمانية مركب واحد ستاس واحد علامة متعاون أما إيمانك ضعيف أما إيمانك تجي شرعي قالوا نسكتاجا wanaag mooyee xumaaneba kama timaado marka waxa ku jira salaaxu dunya wal aakhirah hagaaga ay ku hagaagayso adduunyadaada iyo aakhiradaada ay ku hagaagayso cagsigeeduna ilaahay diintiisa la isku xukumi waaya ama xukunkiisa la isku xukumi waaya waxa ku dhex sugan fasaad ay ka fasaado adduunyada iyo aakhirada inta hadaynu ka baxno qodobka xiga waxaan doonayaa ugu muhiimsan runtii khatarka iyo dhibaatada وقفك كوكينيو أما الدولة كوكينيو وحكم تكتي حكم كدغتا شرعي قال له وحناهين مسألة الحكم بغير ما أنزل الله مركا لغا هدليو صفة عامة وإلا لهي صفة خاصة أهل العلم وإنت بدن ويوها الله صفة عامة كي وحوي قف كستا أو حكم كي إلهي لها قرب مرا وحكم دعي حكم بغير ما أنزل الله وحكم حكمي waxaan ilaahay soo dajiyay waxaan ahayn qofkaas ama keligii ha ahaado ama qoys ha ahaado ama sheekh ha ahaado waxay taabanaysaa ummadda oo dhan qof kastaba oo ficilka sameeya oo xukunkii alle xukun aan ahayn wax ku kala xukuma wuxuu noqonayaa xakama bighayri ma anzala Allah kaasi waa sifada caamka ah nusuusta loo dariishanayaana way shamlinaysaa ka iyo suurada dambe أين بدأ أهل العلم زمكا يقديما بل لقاها الله وحكمدا ومسألة المركة للتلمامو لقايا أبو أذهانتو إلي حق إذا قبطو وحلو يقانو قضاء إيا حكامته وحي سمايا قضاء إيا حكامته خاص يلك يقول خاص يلي وحوي وعدة بدنا بأي صومر تحكمكو صومر وقاضي قال ده واحد صومر أحكامتي دمادي أمواشي ومدى أيوفنيا مركة وحو العرضوية هينو كله أما ذلك كوكا حكومة بغير ما أنزل الله حكامته يا مدحوينياشا يا أمرادا يا بقرهدونا يقول الدي وطن دان أيا لغا يابا إنا إمامولان أو أي باور كيسا يا أوديسا قعانتكو هيان مركا ما دام يقول ياسي أي مظنويين يلو فلان
qadiyadan oo ah in ilaahay diintiisii waxaanay wax lagu xukumo ayaa in badan iyaga laga hadlaa laakiin masaladu way ka guda ballaaran tahay xukaamta iyo qudaada way ka guda ballaaran tahay idan haddaba qof kastoo muslima waxaa saaran qadiyadani saan horeba u tilmaamay laba daraf oo zamankan jooga oo laga yaabo inay labaduba bidca ku dhaceen ayaa masalada qolaba darafka istaagtaa qolo waa qolada iyagu ku gaalaysiiya waxaan ilaahay iyo rasuulkiisu sallallahu alayhi wasallam ku gaalaysiin khawaarijta fi kulli casrin qoladaas waxa weeyaan masaladan guluwi fara badan bay kaga dhaceen darafka kale qolyo badan oo kuwa doonayay inay radiyaan ayaa iyaguna waxay kaga dhaceen taqsiir iyo gabood fal badan ilaa ay halis u noqdeen inay taqriiriyaan manhajkii ama manaahijtii murji'ada waxa weeyaan weliba qullaadooda ahayd inay taqriiriyaan oo kutubna ka qoray marka labada darafba waa laba bidco munxarifa wasadka iyo xaquna waa masalada iyo tacsiilkeeda iyo ahlucilmigu siay u tacsiiliyeen in loo fahmo aayaad fara badan baa ilaahay kaga digay khatarta ay leedahay aayaadkana waad arki doontaan oo inuu akhriyi doonno insha allahu tacaala waxay tilmaamayaan cidda sidaa samaysaa ama nifaaq iyo munaafiqnimo weliba akbara ayaa sharcigu ku tuuray ama ku ganay ama wuxuu ku ganay kufri ama dulmi ama fisqi waxyaabaha kala duwan ayaa waxa weeyaan aynu arki doonaa قال ربنا جل وعلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا إلهي سبحانه وتعالى آيات الإحدانات إلا سدح الإحدانات سورة النساء أو تشريعات فربضا ألا وكغور رمي أحكام فربضا أو الشريعة ألا وكتل مامي أو أيضا كوكتا أحكام تميراثك يدحلك suuradda asalka waa ay tahay ayaa aayadda lixdanaad ilaa saddex lixdanaad alla wuxuu tilmaamayaa iyadoo ahlucilmigu ay isku khilaafeen laakiin madmuunkeedu uu yahay qolo afkana ka yidhi mu'miniin baanu nahay aamanna waanu ku rumaynay nebi muxamedow calayhi salaatu wasalaam diimihii kaa horreeyey iyo kutubtii lagu soo dejiyeyna waanu rumaynay isla markaana maxay samaynayaan يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وحيدون يعني يو أفكار سيدا كلا إن يوحكم تغان طاغوت إن يوحكم تغان يظل أمرين إن يكقالوا بان الطاغوت كي يكقالوا بان شيطان كنا يوحدون يا إنه اللومي فوق ألا واسيعة دي وركوده وحا ألا يلهدين لقوا يلهدو ورك علي الحكم كان لسودك يا رسول كيسو waxaad arkaysaa kuwa munaafiqiintu iyagoo jeesanaya oo isdiidsiinaya warkaa loogu yeedhay iyagoo isdiidsiinaya ilaahay alla subxaana wa tacaala aayadda wuxuu ku tadyiiliyey inay yihiin kuwaasi kuwa alle og yahay in quluubtooda xanuun jiifo marad uu jiifo munaafiqiina yihiin allana waxaa wuxuu amray rasuulkiisa inuu ka jeesto kuwa intuu wacdin karayana inuu wacdiyo aayadda waxaa ku jira oo laga qaadanaya doonista la doono in loo xukun tago kitaabka alle iyo sunnada nabi muxamed sallallahu alayhi wasallam waxaan ahayn doonista la doono inay tahay taacatu shaytaan la adeecayo inay tahay waxa kaloo ku jira tagitaanka laga tago taaguut in loo xukun tago xaggiisa la tago isla markaana laga tago kitaabka iyo sunnada iyo faraa'idda iyo sharciga la soo dejiyay oo xukunta loo xukun tago xaggiisa la tagaa qofka inuu ka yeelayo qof aan muslim ahayn oo aan mu'min ahayn ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku magacaabay qolada sidaa yeelaysa inay munaafiqiin yihiin oo waxaa jiray baa leeyahay qolo munaafiqiin oo afkana iimaan ka sheegta marka wax la isku qabtana ama yuhuudda u taga ama kuhaanta
iyo kuwa faalalowga u tago waxa weeye xukunka iyaga ka qaata kuwaas ayaa aayaadka ku soo dejiyeyba ahlulcilmigu ay tilmaameen taaquudkuna waa kelmad qur-aanka iyo sunnada ku soo aroortay in badan macaani fara badanna ay soo gudagelayaan waxaa kuu koobaya qowlka mashhuurka ee alcallaamata ibnu lqayim raximahullah uu yidhaahdo ataaquudin aw matbuucin aw mutaacin fataaquutu kulli qowmin man yataxaakamuuna ilayhi gayra allah غير الله ورسوله ويعبدون من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة الله وحليه ابن القيم رحمه الله طاغوت كوا شيء كستو أدونك حدكي سأودافسيو كاسو مثل عابدو أما مثل الراعو أما مثل أضيعو ولو ولبا واحد طاغوت وحي أي عدة أحكم تغان إيغو كتغيا xukunkii ilaahay oo rasuulkiisa kaasoo ay caabudayaan alla sokadii oo ay raacayaan hanuun la'aantii waxaa kaloo markaa uu shiiku sheegay ama uu sheegay alimaam moxamed ibni cabdilwahaab in ay yihiin ru'asaa'u altawaaqiit inay shan yihiin ka koowaad wuxuu ka dhigay ashaytaan kaasoo ugu yeedhaya dadka ilaahay qayrkii inay caabudaan ka labaad waa alxaakimu aljaa'ir almughayir liaxkaami illaah كحاكم كوضع المسلمين حكومية ولب الظالم كجائر كدورين يبدل أحكام إلهي سبحانه وتعالى كصدح هذا وكحكومية وحن إلهي سود جدتك كوكا حكومية كأفراد وكشيغان يا غيبك كأفراد كسنادنا وكإلهي سبحانه وتعالى سكدي العابدين يسقوا ولب عبادتي سكر عليها آيات كاركا كدك يا وحكم إذا قول ربي جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أيضا ابن كثير رحمه الله وحوليه الله سبحانه وتعالى وحكد أرانيا بنفسه الكريمة المقدسة نفتيسا كراميسا مقدس كطاهرا أي الله وحكد أرانيا أوليه هاي مركي ودارتي قفنا إيمان لقيه لمايو إلا رسولك وحكم تغو أرميه سؤالا وحاو حكمينا وهو قانسمو باطنا وظاهرا سيدا موقتا هي سيدا قلبك كترتا ولهذا با إلهي لا يهيبوا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما بمعنى هدي حكرا حكمتو وحكم كي الله شيغو إني كبو أدعيان قلوبتو ذا وأنا كدريمين العريري هي درقين للدرقيين أنا كدريمين أيضا العلماء السباقة المعمان في صحيح البخاري وفي صحيحين كسوار أرطي قصة إليه هاي وكسو دكتي وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما وحليه هاي حديث كنا البخاري ومسلم وكترة أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من أيامه أيس قبصدين أما أي doodeen الزبير وأبيه waxay ku doodeen meel yar oo gacanku marka uu beeraha soo galo gacanka biyaha soo qaaday beeraha waraabiya beerta uu ku soo horeeyo ayaa debiye marka hore biyo qabatika ama biyaha qabsata kadibna beeraha ka dambeeya ayaa loo sii daayaa arrinka iyo biyahaas ay u qaybsan lahaayeen bay isku qabsadeen kadibna nabiga u xukun tageen markay nabiga u xukun tageen baa nabigu calayhi salaatu wasalaam xukun soo saaray xukunkaasoo labadaba maslaxadooda u ilaalinaya nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam isqiya zubayru uma arsil ilmaa ilaa jaarika marka hore adigu beertaada waraabso kadibna jaarkaaga u sii daa biyaha oo ha ka xabisin ninkii baa cadhooday ansaariga ahaa hadal buu deedna ku hadlo wuxuu yidhi an kaana bna cammatika waxaad sidaa ugu xukumaysaa eedadaa baa dhashay oo dee zubayr waxaa dhalay waa zubayr ibnu cawaam ibnu khuwaylid weeye oo hooyadii ayaa waxay safiya binti cabdilmuطalib markaa nebiga sala allahu calayh wasalam waxay ahaayeen ilmaabti bay ahaayeen xagga kalena dee adeer buuga ahaayo waxa eedda u ahayd xaaskiisii khadiija markii uu sidaa yidhi baa nebigu calayhi salaatu wasalaam wejigiisu aad isu bedelay aad baa nebigu uga cadhooday warka ninkaa ka soo baxay kadibna nebigu calayhi salaatu wasalaam xukunkii hore sulxi buu ahaa ee kii xaqa ahaa ee mid walba uu mutaystay ayaa nebigu sala allahu calayh wasalam faray oo wuxuu yidhi zubayrow
beertaada waraabso biyahaagana cisho ilaa geedaha hoostooda iyo meelaha biyo qabatiga kuu buuxsamayaan kadibna markaa u siidaa الزبير باوحو ليه waxaan ku dhaaranayaa alle waxaan filayaa aayadani inay ku soo degtay aniga iyo ninka ansaarta ahi markii uu ku qanci waayay xukunkii ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ku qanci waayay aayadani marka waxay reebaysaa oo ay iimaan u diidaysaa cidda ilaahay subxaanahu wa ta'ala u xukun tagi weyda oo xukunka shariicada alle ka qaadan weyda oo waliba ku raali noqon weyda باطنا وظاهرا سيدا موقتا قلبي قوضو كم منشرح نقوايو أي إيمان ديدسا وحكذا الله تلمامي آيات قال لولا وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم التابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون آيات آديات وبقضي بدنها أوضتك وحكم تجاي حكم كله وحنا هين runtii baqdi badan ugu sugan tahay ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu tilmaamay isagoo munaafiqiinta tilmaamaya marka loogu yeero inay diinta alle u soo xukun tagaan ilaahay iyo rasuulkiisu ay kala xukumaan waaba koox kamido ka jeesanayo xukunkii wa iyakun lahumul haqq ya'tu ilayhi mud'inin ba ilaahay xaalkoodu kuwaas haddii ay og yihiin in iyagu xukunka loo xukumi doono xagga sharciga u soo cararaan haddii og yihiin sharciga ay ka helayaan oo masalada la isku hayo iyaga loo xukumayo sharciga u yimaadaano waxa weeye waliba mudciniin oo mutiiciin ah markaas ilaahay wuxuu ku sameeyay sabr iyo taqsiim ku sameeyay nimanka warkooda iyo ficilka ay sameynayaan sabr iyo taqsiimkii waxa ka soo baxay nimankaasi ma niman xanuunsanayo qulubtooda marad fadhiya ma niman diintaba ka shakisanba ma niman ka baqaya in ilaahay iyo rasuulkiisu ay dulmiyaan mise talo waa dhaalimiin afartaas ayaa waxa weeyaan ayaa ilaahay sabr iyo taqsiim ku sameeyay marka waxa ka soo baxaya ilaahay iyo rasuulkiisu inaanay cidna dulmin ولا يظلم ربك أحدا إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا marka waxa soo haray waxa weeye waa nima shakisan oo mariid ah oo dhaalimiin ah waliba dhulmigaas uu yahay kufri ama dhulmigii weynaayo diinta lagaga baxay sidaas ayaa taqriirinaya al-Haafid ibn Kathir rahimahullah ta'ala وحكى كم إذا آياتك إلهي سبحانه وتعالى إنه كسفيه كوا دين تعالى أما شرع على وحبك حكومين وحي ألا سود الشيء أما وحبك حكومين صدح وصفي وصورة كريا لكم الشيء ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون آيات آخر يا فرتنان آيات الشن يا فرتنان يا آيات آخر تضمي فرتنان سورة المائدة أيان لو حليه هي كي أنكو حكمين وحي ألا سودة شيء كواسي وكافرين وظالمين وفاسقين وي وحكذا الله سبحانه وتعالى وتلمام يسقون على عينيا كوا لا يمنيا الحكم بغير ما أنزل الله أما ضدك حكم يا ما حكم تجيا سقط الماما يلا وحول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وما وصلنا ذلك كوا شركاء يوذا جيال كوا صو أي بمعنى لو ذاتشنيان طاعة الله أي لو ذاتشنيان كوا صو شرعيين يا دين تحقق إذا وحن ألا فصحين وألا آنو إذمين آيات كي نصوص تكسو عرورتي آيات بي أفر بضانتاي وحين نقود بينا مسألة كلاء تحاكمك أما إن لو حكم تقو شرعي الله وحان هين iyo qofka sameeya arkaas xukunkiisu wuxuu yahay Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala hada aladi yadqima badan ayuu tilmaamaya ay makala ay soo naqlin doona markaas inuu khulaasayn doona
وعليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن الحاكم إذا كان دينا لكنه حكم بغير علم كان من أهل النار وإن كان عالما لكنه هداعي mid wanaagsan oo diin leh ka soo xukumaya bigayr ilmi wax ku kala xukumay waxa weeye wuxuu noqonayaa min ahli naar yani diin buu leeyahay laakiin aqoon la'aan baa ku dhacday xagga cadaaladiisa Muhammad laakiin jahli buu wax ku kala xukumay wuxuu ahaanayaa min ahli naar haddii uu yahay mid aqoon leh laakiinnahu xaqii khilaafay oo xaqii waxaanayn xukumayna wuxuu noqonayaa min ahli naar hadduu haddaba yahay mid labadaaba ka aradanna kaana awla an yakuuna min ahli nnaar kaasaa u mudan inuu ahlu naarka ka mid noqdo taasi waxa weeyaan buu yidhi masalada aan ka hadlayaa waa markay qadiyad keliya ku saabsan tahay shakhsi keliyana ku saabsan tahay وأما إذا حكم حكما عاما في دين المسلمين فجعل الحق باطلا والباطل حقا والسنة بدعة والبدعة سنة والمعروف منكرا والمنكر معروفا ونهى عما أمر الله به ورسوله وأمر بما نهى الله عنه ورسوله فهذا لون آخر يحكم فيه رب العالمين وإله المرسلين مالك يوم الدين الذي له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وحليه هذا هدوي أهمد يسوق حكم عام أمده ودتشنيا حكم عام وأمده يدنا ولا تابنيا مسائل كالدولنا أي تهاي أو باطل كيو حق بدليا حقنا باطل وبدليا وحي وناك سنانا وحمان كدغيا وحي حمانا وناك كدغيا كاسي أرن كيسو إلهي بحكم دونا يعني أرن كيسو وأرن قار أي شيء ليه مرك لوحي ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى كسوارف البادية وكأوامر المطاعين فيهم ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وعليه الشيخ قفك وحشك كتير قفك عقيدية واي إلى واجب تهي حكمك الله إلا يسكو حكمه يا رسول كيسة صلى الله عليه وسلم كاسي وكافر كحلا صددتك إنه كوكا حكمه وحو يسوي عدل واركيو يسوي عن دين الراعين وحي لسودتي كاسي لو كافر ويقولي sida in badan oo muslimiinta ka midi caadaadka ay odayaashooda iyo miyada loogu jideeyo iyo dadka ay weyneeyaan ay ateecaan ay u jideeyaan oo kale هذا هو الكفر به فإن كثيرا من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار وإن كانوا جهالا كما تقدم أمرهم منهاج السنة النبوية مجلد الخامس بقول صدر وحليه يا شيخ أرنك سواء كفر يقال لما وإن بدن أو مسلمين شيئا يعني كما حكومان أما وحكم تقان عاداتك أي كسر دحلين أو يشهد وحيابا لمد كتاسو أي تاي تي أي ضدك أي وينيان أي أمرين كوا ساعة بحتى قرنيان إن أنا أبنانين إن الله يسكو حكمين وحل إلهي سود الجن ووحل يسكو حكمي كريا أي دين تعلم إسلام مركانا أي التزامي وأيان أرنكا بل أي إسكح على صدان إن يسكو حكمان وحل ألا سود الجن كواس هو قال يقول الجهال مع النقضان والكفار والله عذر دار الماي اختلاف كوبانية موضوع علي تسمى لها أما صبرة موضوع كسر طيب الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله وحوليه هي سقوط الماما يحكم قاعدة بغير ما أنزل الله حكما فهذا يختلف إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين إلى آخر كلامه هذا كان وقت الماما يا تفصيل بوجلين يا الإمام الشنقيطي أو عليه هدي أرنك حكم بغير ما أنزل الله هدي هي تبديل كانوا نفسر دون وحوي هي وحوي وكفر
diinta lagaga baxayo haddii uu tabdiil ka maran yahayna wuxuu noqonayaa qof ku dhacay dambi aad iyo aad u weyn oo sharcigu uu gaalnimo ku magacaabay haddaba haddaynu soo xoorinno hadallada a'immadu waxaynu odhan karaynaa in loo xukun tagaa ama in horta lagu xukumo waxaan ilaahay soo dejinin xaalad uu yeelanaya qofka sidaa samaynaya hadduu ictiqaadsan yahay inay u bannaan tahay waxaan ilaahay soo dejin in dadka lagu kala xukumaa waa kufri akbar ah oo mukhrijun min almillah qofka yidhaahda waxa bannaan qaanuunka faransiga ama ingiliisiga ama waxyaabaha kale la midka ah ama caadaadka odayaashu ay dejiyaan way bannaan tahay in laysku xukumaa diinta dibaddu ka yahay laxdada uu sidaa ku qowlay buu dibadda ka yahay waa kufr akbar weyn qodobkaas waa qodob khilaafna kama taagna ahlulcilmiga dhexdiisa masalada labaad haddii uu ka sii kordhiyo uu yidhaahdo ilaahay kayrkii sharciga alle waxaan ahayn oo laysku xukumaa waxay la mid tahay sharciga alle ama diinta alle isku xukun ama qawaaniinta iyo xeerarkaa kale isku xukun way siman yihiin iyana tii horey la mid tahay oo diinta dibaddu ka yahay ama ha tukado ama ha soomo hadduu qodobka saddexaad hadduu ka sii kordhiyaba oo uu yidhaahdo xukunka kale diinta shareecada maahe axkaamta kale iyo qawaaniinta kale ayaa kaba fiicanba shareecada alle oo zamankan shareeco alle looma baahna dad in gacmaha la gooyo looma baahna waxaa ka fiican qawaaniintaa kale dadka in dhagax lagu dilo ma bannaana ama waxaa ka fiican qaanuunkaa kalea ka raxmad iyo naxariis badan dad badan waxaa laga yaabaa inay diinta dibadda ka yihiin ismoodayeen inay diinta ku jiraan iimaanku wuxuu u buraa sida weysadu u burto qofaan weyse qabin inaan salaad laga aqbalaynin waxa iyaduna islaam aan noqonaynin qof iimaankii ka buray muxuu ku buraa iimaanku waxyaaba badan buu ku buraa qowli buu ku buraa ficil buu ku buraa caqiiduu ku buraa marka ficilada ama qowlalka dadka qaarkood sida yar isaga soo dhuunta ee ku qowlee yidhaahda waxa weeye looma baahna maanta in dad gacmo la gooyo iyo in waxa weeye dhagax la isku dilo ama shareecooyinka dadka kale qawaaniinta kalea ka raxad naxariis iyo raxmad badan waa kaafir billaahi wey waana kufri mukhrij min almilla ahlucilmiguna iskuma khilaafo xaalada afraad idaa xakama bisharci lmubaddal aw istabdala bihi xukman taaquutiyan waxakama bihi xukmu lmubaddelka haddii uu la yimaado iyana waa inoo iman doontaa tacriifkeeda xaaladaasi ama tashriic caam ah uu dejiyo tashriicaasoo mutadamin ah taxliilu maa xarama allah almujmaci calayh aw taxriimu maa axalla allahu caza wajal almujmaci calayh waa inoo iman doontaa tafsiilkeeda afartaa xaaladood waxay ka mid yihiin xaaladaha ahlulcilmigu ay isku waafaqsan yihiin inay tahay qofku hadduu la yimaado inuu diinta dibadda uga baxayo wixii intaa ka soo hadhay oo noqonaya in qofku laaluush intuu qaato xaalad mucayana uu waxa weeyaan isagoo xukunkii alle inuu sidan yahay liajli hawa qadiyad mucayana ay tahay iyo waxyaabaha la midka ah isla markaana uu aaminsan yahay in xukunka ilaahay soo dejiyey uu saxsan yahay xukun la midina aanu jirin waajibna uu yahay in la isku xukumo laakiin hawo iyo rishwo iyo waxyaabo la mida u garab maray kaasina laa shaka inuu kufri ku dhacay laakiin kufriga uu ku dhacay maaha bay leeyihiin ahlulcilmigu kii uu diinta kaga baxayay laakiin waxay nagaga filan in uu yahay sharcigu inuu kufri ku magacaabay macsiyada ama dembiga sharcigu kufri ku magacaabayna way ka adag tahay macaasida kale ee aan lagu magacaabin kufri lagu magacaabin waxaan si gaara iyadana isu dul taagayaa masalada qaanuun alqawaaniin alwadciya ama tashriic alcaamka ama sharcu lmubaddal qaanuunka haddii uu hoosta ku wato walow faqra waaxida ha noqotee masalada masale khatiira weeye dad badanna aanay ku tanabuhin qaanuunka la dejinayaa ee ummad lagu xukumayo ama baarlamaan ha ansixiyo ama cid kaleba aan ansixisee hadduu hoosta ku wato inuu xalaalaynayo shay ilaahay xaaraantimeeyey iyo rasuulkiisa sala allahu calayh wasalam oo laysku waafaqsan yahay inuu muxaram yahay
أما سيدا كالي حديه حارانتمين أيو شيء إلهي حلالي رسول كيسلو حلالي وحي نقونيسا كفر أكبر من نقونية تشريع عسي عدة عضيسا أما تاغيرتا أما عد كحكمتانا وحي كبدا على الكفر أكبر ومخرج من الملة أي كبدا عليه وحلمي ذا أن كان مو هوستك موتين وحلو إضافي أما الله قال لي الحكم المبدل أما الشرع المبدل أي الله قال لي استغنى كفر أكبر شرع المبدل وما حيونا يمدون على الشيخ سامي تيمية لكن خلاصين سوحوية قفكم إنه يلاهدو شيئا أن وحكو حكمي إلهي با فصحي أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وشرك في الطاعة إلى هذا هو شرعي الله كان سيدي يهود وأي سميسي وأنت شرعي الدوريين من المسكحة وكأن أنت دجاجة إلهي أطيريين إلى هذا إلهي بحكم كان دشي كاسلو النقارة كفر أكبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا لا الدور أي مسألة كلها هاي وحكم إذا فإنه هذا الكولية فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو فعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذ شريكا لله شرع في الدين ما لم يأذن به الله وحلي الشيخ رحمه الله قفك ضدك أشرعيه أما أقول دوية الله أما كواتشبي قول يفعل كودونا بحلقذين وحن إلى هاي شرعيين كاسد بحارة الشرع بودتشي دين تلو تيرنا يكاسو الآن فصحين كيسا كتاغير كراعي أحكم تغانا كاو حكي شيء معبود اللسكدي وحكي شيء معبود بوكي شيء مثل عابد اللسكدي وحكم من هذا الذي فمن أطاع أحدا في دين الله ما لم يأذن به من تحليل أو تحريم أو استحباب أو إيجاب فقد لحقه من هذا الذنب نصيب كما يلحقه الآمر الناهية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله آياتها سوى فصيلة يا شيخ العلي يعني دلعين تألو دلعي كريستان إيا يهود إيا وحي كيشان علماء دودي إيا عباد دودي خبي البي كيشان ألا سكدي أيا شيخ العلي قف أطيعه وحن إلهي فصيحين تاسوا وحل حلالين يا أمال حاراتمين أمال تعليسان يا أمال واجبيين وحوها هليليا آية النصيب بكوية لنا يا وحكم إذا نقنيا من ألسك هذه معبود سمايستين ابن أبي حاتم رحمه الله تفسير كيسا وحكسر علي عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنه كفسرين قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أيوح لمن حكم بكتابه الذي كتبه بيده وترك كتاب الله وزعم أن كتابه هذا من عند الله فقد كفر وشرع بمبدل كهذا قفك كحكم كتاب يسجد شيء أما عدك لبشر هذا شيء لا كاني قانون لا كاني أما يسجد هذا شيء أما عدك لا كانتين كتاب كي إلهي نكتجا إسلام كان حكم كان حكم كي إلهي كاسوح هو كافر بالله وي شيخ الإسلام ابن تيمية مركل وحليه هاي ولفظ الشرع يقال في عرف الناس على ثلاثة معاني الشرع المنزل شرع منزل وهو ما جاء به الرسول وهذا يجب اتباعه ومن خالفه وجب عقوبته ككود وشرع منزل وهذا شيء النبي محمد لي عليه الصلاة والسلام أما كتابك هالنقدة أما سنة دي سهل نقدة كاسنوا واجب إلا راعقفك خلافانا وواجب إلا عقابه والثاني كلماتنا الشرع المؤول وشرع مؤول وهو آراء العلماء المجتهدين فيها كمذهب مالك ونحوه فهذا يسوغ اتباعه ولا يجب ولا يحرم وليس لأحد أن يلزم عموم الناس به كلماتنا وشرع مؤول وعلماء آراء اجتهادات كود علماء المسلمين كاسنا متكمد قول كيس واجب كما نقول يا أمدا إن عد لو أدرك يا لو خصبانه ونقول يا
إن قفك راكتك الشرع المنزل أو راعي الشرع المؤول. والنوع الثالث بيقول الشيخ هو الشرع المبدل، وهو الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين. فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع، كمن قال إن الدم والميتة حلال ولو قال هذا مذهبي ونحوها ذلك. مجموع الفتاوى مجلد كصدحات لربق واليسيدية اللحدة. عليه الشيخ نوع صدحات وشرع مبدل كأه، وانا كبين ابو رشد الهي لو بين ابو رني رسول كيسا الا ورني وحنا وشرعي الله. ولهذا بيقول قفك الى هذا كاس هو شيء كاس هو شرعي الله، يسوى شرعي الله احين حكمك الله انا هين كاس هو كافر بالله بلا نزاع وخلاف علماء دحدود دحيا لا ما جرتو. ومثال uga bixiyay sida qofka yiraahdo kale dhiiga iyo meeytadu waa xalaal, dhiiga in la cabo iyo meeytada in la cunaa waa xalaal in la yiraahdo shay sharciga lagu garanayo inuu muharram yahay in umada loo xalaaleeyo. hadaba masalada waqtigeedina waxa wadaynu gabaabsi yahay. طيب إذن مسألة سيدنا نتلمامني أما عرضي أن كسميني ومسألة مال أدك تاغل شرع ولا مال أدك ولغي علماء مركا أما شرع مسألة مركا لغا ورميو واقعين أن لو سود دادقو waxay taabanaysaa dastuurada ay dawladaha islaamka ahi ay ama wax weeyaan muslimiinta ahi ay ummadaha ku kala xukumaan. dasaatiirtaasi waxay u noqonaysaa masaa'ishan dastuur kasta ama nidaam kasta oo qarrira ama dadka u banneeya wax sharcigu u meel ku xidhay sida muharramaadka waaweyn ribada oo kale oo kabaa'iru dhunuub nabigu ku sheegay calayhi salaatu wassalaam in la taqniiniyo la banneeyo riba la banneeyo horta waa kufri akbar oo mukhrij min al-milla waa qodobka koowaad. ولا يجوز بحال من الأحوال ومنازعة iyo ku qabsi ilaahay lagu qabsanayo wixii uu xaq u lahaa in la baaskareeyo la fasaxo in loo codeeyo la yiraahdo ha loo codeeyo ayaa laga yaabaa in kufri ba noqoto. waayo shay kufri ah walaw faqra waahida boqol faqra haduu ka kooban yahay faqra waahida hadday koobsanayso taxliil ma xaramahu Allah qaanuunkaasi baatil buu noqonayaa. عند وعض يسارا أفراد دودا حيوبا عنتين سيجارة الله إيغو لكن كحكم عامة كفر بكل عام. عند وعض يسارا عند الدفاع على الله منه عند وعض يسارا الله منه وحلمدا قانون كالزنا أما حكم كالشرع والزنا كحكمي. الزنا هو من كبائر الذنوب شرعنا الزنا وحو يقالنا ومحدد وشيء حددا أو قيحوي حكم كعدة كل عضي لقى قاضيانا ينوى شيء عد أو أن لبس كتير كتابك الله يسنى النبي محمد كل حجرته عليه الصلاة والسلام إن لتابطه للدوريو oo qaanuun kala dawladaha maanta qaarkood reer galbeedku in qof kale ama nin uu dumar u tago oo ka zinaysto waxay u yaqaanaan ba xaq qofku leeyahay labada qof haday isaga raali yihiin wax xuquuqo oo saaran ma jirta. qawaaniinta noocaas in inta la soo dhuubo ummada muslimiinta loo soo dhuubo qaar difaacaan ayaa darar شيء كفر أما لقى آمصون أهل العلم وأنا وحيت المام الساكت عن الحق شيطان الأخرس
qofka xaqa ka aamusaya isagoo og waxaas inay xaq yihiin xaqnimadiisa cadaynteeda ama baatilnimada cadaynta baatilnimadiisa waa shaytaan akhrasa oo aan hadal awoodi karin oo agnaan ah weeye sidaa daraaddeed qaanuun kasta waa tusaale un baynu uga jeednaa qaanuun kasta ama ha ku saabsanaado axwaalu shakhsiya oo guurka iyo furiinka iyo waxyaabaha la midka ah ku saabsanaado ama dhaqaalaha ku saabsanaadeen meel kasta oo uu ka soo galo nolosha waxa waajib ah in xukunka alle loo xukun tago in laga leexdaana suwarkaas u yeelanaya laakiin marka la isku soo xooriyo waxa kaga filan qofka muslimka ah inuu kufri yahay waxaan marnaba iyadana aan ogolayn adeegsigay adeegsanayaan kuwa lunsan ee khawaarijta ah ee ama suuradaha qaarkood oo tii kufrigiisu akbarka ahaa waxa weeyaan qaarkood isticmaalaya ama acyaanta ku duldejinaya isticmaalka ay khawaarijtu isticmaalayaan masalada kama saarayso in sida sawaabka ee xaqa ay tahay aan laga gaban laakiin iyadoo qofku laga yaabo inuu isleeyahay aan mad kuwa u ekaataa inuu ka aamuso masalada cadaynteeda iyo meesha ay taagan tahay iyaduna waa khutuuro kale sidaan horeba u tilmaamay waxaan ku soo gunaanadayaa masaladan sidaan horeba u tilmaamay alxukmu bikayri ma anzala allah zamankan aad iyo aad bay weji badanta cid baana dabada ka riixaysa shayaaiin alinsi waljinni baa difaacaya waxa laynoogu soo duulay waxaa kow ka ah diinteenna in layna garab mariyo sidaa daraaddeed waxaa waajib ku ah xukaam iyo maxkuumiin qaar wax xukumaya iyo qaar la xukumayo qaar baarlamaan fadhiya iyo qaar meel kala fadhiya dhammaantood waxaa waajib ku ah oo aan baryo ku ahayn oo waajib ku ah inay ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baqaan oo ay ka digtoonaadaan qaanuun sharciga alleh ama xukun sharciga alleh khilaafsan inay sharciyeeyaan ama u fartaagaan ee waxaa waajib ku ah inay ka soo horjeestaan waxyaabaha khatiirka ah ee masaa'ishan soo gelaya waxaa ka mid ah waxyaabahan ay dadka qaarkood ama hay-adaha qaarkood ay meelaha booro lagu soo dejistaan ay yidhaahdaan dumarka in la gudo waxa weeye cuquubaa laga dhalinaya dowladaha qaarkoodna ay kaba dhaliyeen dowladaha qaarkoodna ay ka dhaliyeen iyagoo u jeeda gudniinka kay diidayaan uu yahay kii sharciguu banneeyey ee aanay ahayn ka fircawnigee muxaramkee islaamku aanu oggolayn kaa aanay u jeedina kii sharciga ahaa u jeedaan diidmada kaa la diido ciqaabna laga soo saaraa sharci mubaddel buu noqonaya wuxuu noqonayaa noocii kufriga akbarkaa buu noqonaya sharci mubaddel noqon maayo wuxuu noqonayaa noocii kufriga akbarka ah waxaa ka mid ah dowladaha qaarkood oo islaam sheeganaya oo haddana xarrimay tacadud in raggu guursadaan dumar mid wax ka badan guursadaan dowlado islaam sheeganayo dastuurkooda ku qortay waxa loo xukun tagaa waa kitaabka alle ayaa waxay ku qoraan inay xarimaan waxyaabahaasoo dhan markaa waxay ka mid yihiin aafada zamankan ee dad iimaankoodii ama iimaankii ka baxay oo daahirka islaam ka sheeganayo munaafiqiini ay wadaan ama dad jahalo ah oo diinta aan garanayn ay wadaan sidaa daraaddeed waxaan ku soo gunaanadayaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala aynu ka baqno masalada ugu dambaysa u xukuntaga loo xukuntagaa suuray culammadu ka soo reebaan oo qofkii dhul gaalaad ku nool maalan ama islaamba ha sheegtay ee dhul maxkamadihii ay fadhiyaan waxaa ama lagu xukumayo sharciga alle waxaan ahayn isla markaana xuquuqdiisii ay kaga dayacmayso haddaanu maxkamaddaa tegin haddii suuradu ay saa tahay culimada qaarkood waxay tilmaamaan inay isagu aanu ku dambaabaynin oo uu noqonayo man ukriha wa qalbuhu mudma'innun biliimaan uu noqonayo laakiin qofka isagoo og kuna raalliya u xukun taga isaguna waa ku gaaloobaya wallahu tacaala aclam wsala allahu wslama wbaaraka waancama cala cabdihi wa khaliilihi muxamed wacala aalihi wa saxbihi ajmaciin